kusoo dhawaada barnaamijkeenii cunno karinta ah anigoo Chef Cabdicasiis Dhicis waxaan idin soo bandhigayaa habka wacan ee loo suubiyo hilib ariga waxaa loo suubiyaa dhowr siyaalood waxaan idin tusinayaa qaab idinku cusub waxa aan soo qaatay khal ayaan soo qaadanayaa waxa aan ku darayaa kabsar caleen aan soo shiiday iyo toon kadibna waxa aan ku dhigayaa hilib ariga 48 saacadood ilaa iyo 72 saac ayaa hilibka ku dhigaysaa sababta aad ugu dhigaysid hilibka 48 saacadood ama maxaa la yiraahdaa 72 saac ugu dhigaysid waxa weeye hilibkii ayaa jilcaya marka aad carfiyihiisi iyo marinade-kiisi iyo alaabtiisi iyo wixii aad gelisid hilibkii si fiican ayuu u jilcaya kadibna uma baahanaysid in aad saliid aad ku karisid dad khaladka ugu weyn dadka ay suubiyaan waxa weeye hilibka ayay karinayaan hilibka hadaad marinade ku dhigtid ama tenderizers aad ku dhigtid ama aad ku dhigtid wax acid la aad ku dhigtid ilaa iyo 24 saac wax ka badan aad ku dhigtid saliid iyo carfiyaalna aad ku dartid waxa weeye hilibkii wuu jilcaya kadib marka aad shiishidna waxa oo noqonaya hilib aad iyo aad u jilicsan hilibkii waxa aan yeelay 48 saacadood ayaan farinjeerka iyo khashi iyo carfiyaashiisi iskula dhigay markaan si fiican aan iskula dhigayna kadib waxa aan yeelayaa hilibkii ayaan soo qaadanayaa waa shiilayaa waxaan kaloo aan noocan hilib ariga aan siinayo aan suubinayaa baasto oo oo very light oo u suubinaya sida qaabka minestrone oo kale minestrone dhowr noocood ayaa loo suubiyaa Soomaalidana nooc ay u suubisaa waxa kaloo jira minestrone milanese mid la yiraahdo oo taano mar kale in siin doona hadoo la yiraahdo laakiin waxa aan yeelayaa baastadii ayaan waxaan ku karinayaa carfiyaal iyo waxa aan ku karinayaa khudrad kadibna waxa aan yeelayaa hilib arigii ayaan ku qurxinayaa hilib arigana waxa aan kaloo ku soo darsaday bataati ayaan ku soo darsaday marka diishkan aad iyo aad ayuu u macaan yahay wiigagii hore waxaan hore idin ku soo sheegay in aan dhowr noocood oo hilib ariga sida loo suubiyo aan idin tusin doono marka waxaan idin tusinayaa ilaa iyo 7 nooc oo qaabka hilib ariga loo suubiyo oo aad iyo aad u macaan wiigii horena waxa idin tusiyay hilib ari oo Bandar Qaasim style oo aad iyo aad u fiican oo carfiyaashiisi iyo alaabtiisi iyo wixiisi inta aan soo qaatay aan isku shiiday kadibna marka aan isku shiiday waxa aan yeelay maxaa la yiraahdaa dusha iyo meel walba ayaan ka mariyay foornada ayaan geliyay qaabkan uu ka gadisan yahay number 1 hilib arigii hore aan suubiyay waa soo kariyay carfiyaashiisi aan ku soo kariyay kadibna waa foorneeyay hadaa rabtidna carfiyaal iyo waxa rabtid ayaad ku shiili kartaa laakiin noocan kale qaabka kale aan suubinayo waxa weeye marinade-kiisi iyo carfiyaashiisi ayaan waxaan ku soo dhigay 48 saacadood kadibna hilibkii markoo jilco waa shiilaya marinade-ka hilibka waxa uu ka kooban yahay 2 pounds oo goat meat 2 xabo oo yaanyo 2 kaab oo vinegar 1 kaab oo cilantro 2 qaado oo kamuune 1 qaado oo maxaa la yiraahdaa oo cusbe 1 pound oo potato 1 qaado oo garlic iyo olive oil 1 kaab oo spinach and half cup of limone inta ayaan aan ku darayaa digsi ayaan waxa aan ku shubtay basal ayaan ku shubay iyo saliid iyo basasha markay isla karkaraan oo si fiican iskula karkaraan ayaan oo basasha ay jilicdo ayaan waxa aan ku darayaa hilibkii aan ku soo dhigtay khasha vinegarta aan ku soo dhigtay iyo kabsashi aan ku soo dhigtay 72 saac aan marinade-kiisi aan ku soo dhigtay ayaan ku shiilayaa hilibka hadaad marinade aad ku dhigtid ama aad ku dhigtid waxyaalaha acid kale sida vinegarta ama lima dhanaanka ama aad ku dhigtid meat tenderizerka oo suuqyada lagu gado ama aad ku dhigtid hadoo ilaahay ku roon yahay babayga ama aad ku dhigtid geedka gaduudka miraha yaryar loo yaqaano ramaanka waa meat tenderizer weeye waxa weeye hilbaha ayay jilciyaan iyo babaygaba hadda waxa aan ku darayaa lima dhanaan hilibka uma baahna karin badan saas uma baahna aad buu u jilcin yahay waxaan kaloo aan ku darayaa 1 qaado oo toone ayaan ku darayaa toonta cunada aad ay u carfisaa waxaan kaloo aan soo qaadanayaa xawaajkii oo Soomaalida ahaa
xawaajkii aan soo qaadanayaa asagana waxa aan ku darayaa hal qaado oo buuxda ayaan ku darayaa waan daboolayaa dabkana waan u gaabinayaa hilibkii daboolka ayaan ka qaaday wuu yara gaduutay waxaan kaloo hadda aan ku darayaa maaragtay yaanyo aan si isla eg u gooyay waxaan kaloo ku darayaa hal qaado cusbe ah haddii aad vinegarta iyo maaragtay liin dhanaanta aad maaragtay ku dartid raashinka hilibkii wuu yara gaduutay gacanta ayaan isdhex qaadsiinayaa waxa aan soo qaatay bataati oo aan si isla eg u gooyay ayaan ku darayaa hilibka waxaan kaloo hilibka aan ku darayaa spinach haddaadan haysan waxaad ku dari kartaa maaragtay cabbage waxaad ku dari kartaa kale waxaad ku dari kartaa khudrad alla khudradda aad rabtid ayaad ku darsan kartaa carrot ayaad ku dari kartaa waxaan kaloo aad ku dari kartaa digir ayaad ku daraysaa hadda spinachkii ayaan ku daray hilibkii daboolka ayaan ka qaatay bataatigii iyo maaragtay hilib arigii si fiican ayuu maaragtay u karay gacanta ayaan isqaadsiinayaa haddaan rabo hadda sixni waa ku shuban karaa maxaa la yidhahdaa bris baad ku cuni kartaa basta ku cuni kartaa muufa ku cuni kartaa canjeela ku cuni kartaa sabaayada ku cuni kartaa wax alla waxaa rabta ayaad ku cuni kartaa waxaa kaloo aan hadda aan maaragtay qaybta labaad idin tusiinayaa qaab loo suubiyo maaragtay nooc ka mid a baastada oo aan maaragtay khudrad aan ku suubinayo kadibna aan ku qurxinayo maaragtay hilibkii iyo maaragtay bataatiga waxa aan soo qaatay digsigii aan maaragtay aan hilibka kusoo suubsaday waxa aan ku shubayaa basasha marka ay gaduudato waxa aan ku darayaa baastada waxaan kula darayaa xoogaa yaroo maaragtay biyo ah iyo xoogaa yaroo maaragtay maraq ah aan isku daray waa isla walaaqayaa waa jilcinayaa kadibna waxa aan ku darayaa digir cagaaran oo aan soo shiitay ayaan ku darayaa waxaan kaloo aan ku darayaa maaragtay hal xabo ama laba xabo oo maaragtay maxaa la yidhahdaa maraq digaage waxaan kaloo ku darayaa waxyaroo liimo dhanaane waa isla karinayaa waxa aan ku darayaa khudrad oo digir oo ka kooban galley digir iyo maaragtay carrots waxaan ku darayaa toon xoogaa yaroo toona iyo xoogaa yaroo ginger ayaan ku darayaa waa isla karinayaa markay si fiican iskula karaanna waan ka qaadayaa noodalkii ama baastadii waa kariyey waa dhameeyey hadda waxa weeye waa presentation weeye sixni ayaan soo qaatay waxa aan ku shubayaa baastadii iyo khudradeedii aan isla soo karkariyey ama noodalkii iyo khudradii aan isla soo karkariyey geesahana waxa aan ka dhigayaa maaragtay hilib arigii iyo maaragtay bataati waxaan sidoo kale maaragtay aan bileedkan aan qurxinayaa nooc kale aan tusinayo waxaan soo qaadanayaa spinach ama cabbage dhexda ayaan waxaan ka gelinayaa baastadii ama noodalkii ayaan ka gelinayaa dushana waxa aan ka saarayaa hilib ari kadibna dusha waxaan kaga qurxinayaa kabsal caleen iyo waxyaroo maaragtay qobka liimada iyo waxaan kaga qurxinayaa garlic iyo ginger ayaan kaga qurxinaya waa ujeedaa sida uu kusoo baxay israeli waa very beautiful wiiga dambe waxaan soo qaadanayaa nooc ka mid maaragtay qaabka sida loo suubiyo malayga red snapper waxaan kaloo idin tusiinayaa maaragtay nooc kale oo maaragtay oo hilbaha loo suubiyo waa idin tusiinayaa hadduu waqtiga ii saamaxo alla idmo enjoy it ujeedaan aad